waxaa soo booqday team covid guduud waa dhalinyaro ka shaqeeyaan barnaamij la magac bixeen suxuuri waayeelka ajar ay shaqeysanayaan cid caawinaysa malaha ayaga kariyaan ayaga alaabta guraan ma garatay habeenkii oo dhan waxaasay ka shaqeeyaan waa ma aragtay hadda suxuurtii la diyaarinaya alaabtana lagu guray runtii waa dad macnaha oo wanaag shaqeysanaya waaye runtii in ma aragtay waayeelada la suxuuriyana waa iska taqaanaan islii curfew bandowna waa ka jira waqtiyadan qaarna nolosha dad qaar ma awoodi karaan inay ma aragtay suxuur la'aan ay soomaan uu dhiba maadaama qof weyn uu yahay energy badan oo ma haayo wuxuu u baahan yahay ma aragtay inuu energy helo suxuurtana waa iska taqaanin waa sunno waaye in ma aragtay soonka ma aragtay waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo barakada ay ka mid tahay inuu qofka uu suxurto maadaama caafimaadka oo qofka uu u baahan yahay inuu ma aragtay maadaama waayeel uu yahay runtii waa sareen ما شاء الله يعانو لوكري عانو iyo ma aragtay si qurux badan loo kariyay inta kaliya ma ahane wuxuu wataa caanayaal badan iyo broxide iyo ma aragtay waxyaalo kale wataa teamkan ma sha Allah caaw soo booqday waa dhalinyaro is abaabulay waaye qaar Allah siiyo Cabdicasiis team covid guduud ninkan cali la dhahaa Cabdicasiis walaalkay wanaaga shaqeysanaysa horta noo ducee ummadda Soomaaliya u ducee wadanka xaaladii Soomaaliya u ducee maadaama ma aragtay ducadaada in la aqbala laga yaabaa horta wax walba wanaag Allah na waafajiyo barnaamijkan waxaan bilownay habeenkii koobaad Ramadaanka waxa la yiraahdaa suxuuri waayeelka aniga iyo teamkayga teamka guduud u istaagnay way jiraan dadna caawiyo oo gabdho Soomaaliyeed ah oo caanaha iyo qamadiga soo sadaqaysto anaga waa karinaa baabuur aan oo kiraysan muxuu ahaa Jaabir ninkaas Jaabir baabuurka noo wado waa caagadahan arkay sidaan ku shubnaa waa xidhnaa waa daboolnaa caag walba daboolkiisu leeyahay kadib caanihii broxide oo dadka waayeelka ku cabi lahaayeen aan dusha ka saarnaa waayeelka waxa ugu geynaa guryahooda waayeelka waxaa jiro kuwo aan haysanin dad u adeego oo hoteelada yararka albergooyinka yararka degan jamka waa geynaa 5ka waa geynaa waxaa geynaa 12kan geynaa waxaan geynaa section 3 aan geynaa marka mashruuc cabaar soo socday waaye ma sha Allah caawa habeenkii 19aad aan qiyaasaya ma sha Allah ilaa hadda waxaan gaarsiinay 800 ku dhawaad oo saxan oo suxuur ah waxaan rajaynaynaa soonka maalintu dhamaado inaan 1500 oo saxan aan ku guuleysano insha Allah ma sha Allah qaar Allah in siiyo waa shaqo fiican waaye anaga inta badan dadku waxay ka fikiraan afurka xoog saaraan afurka qof walba uu heli karaa laakiin suxuurta wadanka waxa ognahay lockdown inuu ka jiro curfew na saaran yahay makhaayadihi dhan way xiran yihiin dadkan waayeelka hadda anaga afurka suxuurta isugu xilqaanay afurka noocyo kale ku heli karaan ama sadaqay ku heli karaan ama xataa lacagtooda ku gadan karaan sababtoo xilligaas wali maqaayadaha way furan yihiin صح waa laakiin si xilliga suxuurta maqaayad furan ma laha waayeelkana intooda badan waa kali u nool yihiin oo dad lama noola albergooyinka gaagaaban ay ku nool yihiin marka fikir waxa isleeyahay xilligiisa ku soo hagaaga ilaahayna waafajiyay waa marka waxaan leenahay qof ka soo qayb qaadan kara ka soo qayb qaato annagana waa duceynaynaa insha Allah aad u maasantahay aad u maasantahay ninka cali waaye dhalinyarada shaqeynayso waa ma aragtay inna dhaqaale kuma siiso way isxilqaameen marka mid kalena way furan tahay qofkii wax sadaqaysanaa inuu la baxo way u furan tahay oo ma aragtay dadkan waxa laga yaabaa qof walba ma aragtay daadan awoodina wax kalisid ama aad qaybin yani waxa uu awoodi kartaa inaad dhiirigelisid waxa laga yaabaa marka qaarkood jeebkooda inay iska dabaraan marka qarashka go'o aad u maasantiin ما رتي بهذا تيم كوفيد جدود علي عبد الرشيد جابر خير الله ينسيه